magaalada muqdisho waxaa hadda ka socda shir u dhaxeeya odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta qaarkood saraakiisha ciidamada iyo dhalinyarada beesha hawiye shirkaasi waxaa looga hadlayaa sida la sheegay qaabkii la isugu raaci lahaa dhalinyaro macaawisley ah oo loo sameynayo magaalada muqdisho si ay uga qayb qaataan ammaanka magaalada dhalinyaradan ayaa waxaa la sheegay inay ka kala imaan doonaan dhammaan beelaha hawiye iyada oo beel kasta 20 ilaa 50 nin inta u dhaxaysa tira intaas la eg laga doonayo inay beel kasta ay keento si haddaba dhalinyaradaasi loogu qaybiyo degmooyinka magaalada muqdisho ee 17 ah degmo kastana loo geeyo dhalinyaro ka qayb qaadata sugidda ammaanka iyadoo aan ognahay in magaalada muqdisho ay ku shaqeynayso dawladda federaalka dhammaan ciidamadii kala duwanaan ay joogaan ayaa haddana hadda waxa la sheegayaa in beesha hawiye ay go'aansatay in ciidamo gaara oo saraakiil beesha ah ka amar qaadanayo si gaara oo aan dawladda federaalka hoostegeyn in loo sameyn doono muqdisho si ay u soo gudbiyaan xogaha ku saabsan qaraxyada iyo dilalka ka dhaca magaalada muqdisho arrintan waxa haddaba horay u shaaciyay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Cali Yara Cali oo isagoo arrintan ka hadlayaba waxa uu yiri hadda shir waxaa jira aan qamiista ama sabtida la qaban doono magaaladan oo purely ah oo Soomaali ahayn oo qabiilka hawiye dhalinyaradiisa ah oo 20 jufooyin ku qaybsadeen oo la rabo si kala oo la fahmi karo hadaa oraahda macaawisley xamar laga howlgeliyo ya macaawisley xamar in laga howlgeliyo oo amniga si qaab qabiilan lagu soo xaaji xad soo sheegay way maxamed ahad hadda dagaalka maxaa fududeeyay waxa fududeeyay qabiil حوالله دجال قلي لقوه الله الشباب قريولي دور يتمثل الشباب وقل ليه قبيل كده جنا قري قبيل كأسكاش هذا دقيقة قراءات هروح يقول على الجرعال يروس البرهاب يري ذاس سومالنا قبيل كسبتها شركة مانتا أيها هذا قرشي سوح وياهي إن لا إسلام مال دقو ترى إنه قنا يعني معاوسلي ذا الله سمينا يوم مقدشو سيدا بيلو ويأكل قيب سنة يعني يوم مالها اللي كلا جينيو iyo cid ay ka amar qaadanayaan arintaas ayaa lagu falanqeyn doonaa maanta shirka sida aan xogaha ku helayno maalinta sabtida ah ee soo socoto ayaana la filayaa inuu shirku uu noqdo mid rasmi ah lana shaaciyo haddaba go'aankan ay gaareen beelaha hawiye ee ah in sugidda ammaanka ay iyagu ka qayb qaataan si isxilqaana ciidamadan ayaa la sheegay in dawladdu aanay wax mushaarasiin doonin oo beesha hawiye ay bixin doonaan xuquuqda ay leeyihiin hubkooda iyo sida ay u howlgalayaan intaba haddaba lama oga sida uu qorshahan ku howlgeli doono iyo in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo laamaha amniga kale ee dawladduba ay raali ka yihiin qorshaha ah in muqdisho loo sameeyo macaawisley si ammaankeeda loo sugo haddaba adiga muuqaalkan daawanayo aragtidaada nala wadaag muqdisho ammaan ma ku helaysaa in loo sameeyo macaawisley beesha hawiye waad mahadsan tahay aragtidaada commentiga ku dhiibo muuqaalkana like saaro si share gareeya waa mahadsantihiin saaxiibayaal